maalmaha ka mid nin reebaadiye ah ayaa nabigu khudbada u taagan soo galay masaajidka markaasuu wuxuu yiri yaa rasuul allah xoolihi waa halaagsameen ciyaalkiina waa halaagsameen maatadii baabaaday shidadkii gooye rasuulka ilaahay oo dadkii ma noola ilaahay noo weydiino roobna siiyo nabigu gacmuhu karu taagay sallallahu alayhi wasallam allahumma aghithna minbarka asagoon ka soo degin nabigu sallallahu alayhi wasallam roobkii waa bilowday si loo dhaqaaqan la waay asbuuc kaamil ayuu roobkii uusan kala go'inoo socday isla ninkii miyaa mise waa nin kale ayaa jumcadii labaad nabigoo taagan oo khudbada u taagan istaagay rasuulka ilaahay oo jidadkii go'e roob baa waxalaagay guryihii dume lama noola ilaahay noo weydi roob kale naga qabto bal bini aadamkan arag nabigu markaasuu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi gacmaha kor u taagay ilaahu dhulka taaga iyo togaga iyo meelahaasi roobka u leexi korkana ka leexi ducadii nabigu intuu hayay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi daruurtii markiiba way kala fayday xaggay kala aaday ila magaaladii Madiina wixii ku aadana ay noqotay hawo furan oo aan daruur lahayn markiiba nabigu marka salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xaalahadan markay dhacaan ilaahay buu ku carari jiray ummadana wuxuu bari jiray inay ilaahay ku cararto oo Allah roob weydiisato nabigu bari jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi laakiin maanta waxa leena baray in aynu bini aadamka u yeedhano bal idaacadaha dhageyso dadka musaa'ibtu ku dhacday waxay u dhawaaqanayaan dawladii aaway hay-adihii samafalku aaway hay-adihii UN ku aaway war caawiyaan nala soo gaadha war ilaahay na soo gaadh ma jirto dhinac baan u leexan war bini aadam waxba inaan tari karay arrintu waxay tahay in ilaahay loo noqdo la toobad keeno ilaahay roob la weydiisto musaa'ibtan ilaahay loo cararo sidaasa ilaahay waxaan u keenayaa imtixaanku saas waa la maani'a mana diiday shariicadu bini aadam ku tabar dhaama inaad wax weydiisato caawi tiraahdaa shariicadu ma diidin laakiin marka hore ilaahay ku carar bini aadam tabartiisu wuxuu qaadi karaa iska yar saas daraadeed walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala ha lagu cararo oo ha la toobad keeno oo dambi dhaaf ha la weydiisto oo ilaahay tabaaraka wa tacaala istighfaarta ha la badiyo oo khalad baynu gallay waana ku soconaay ilaahay ha loo soo laabto oo salaadii muxuu ahaayay iyo istisqihi roob doontii nabigu siduu u sameyn jiray ama ha noqoto jumcada ama ha noqoto bixitaan in la roob doono dariiqa saxda ka isaga away kaabaana musaa'ibta roob la'aanta lagaga bixi karaya nabi maxamed inoo jiday sallallahu alayhi wasallam inxiraafaadka dhacay waxa kamid ah dadka qaarkood waxaad arkaysaa markii roob la doonayo meeshii jidadkii nabigu jiday la mari la waxaad arkaysaa xoolay soo ururinayaan markaas xoolo la qalanaya waxa la leeyahay meesha lagu roob doonaya wariya jiday bidcada noocaas oo kala yaa idin yiri qaabkana lagu roob doonaa iyaduna waa inxiraaf kale mar kale to waxa waajiba inaynu ogaano kuweena ladan ee waxaysta tujaarta ganacsatada kuwa jeebkoodu wax ku jiraan ayagana waa imtixaanan yihiin waxay ku imtixaanan yihiin makhluuqaadka baaba'aya biyo la'aanta u baaba'aya cunto la'aanta u baaba'aya adiguna aad kari karto inaad wax ku tuurto haddaad ka gaabiso ilaahay agtiisa su'aal baa ku taala fakan maysid sidaas daraadeed baa nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxyaaluhu samayn jiray waxaa ka mid ah markay dhibaatooyinkan dhacaan oo xaaladdu heerkaas oo kala gaadho nabiga dadka wuxuu amri jiray wadadka caawiya oo ihsaan sameeya oo kalladan ka dhibaataysan ha caawiyo oo gurmada buu nabigu amri jiray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saas daraadeed dadka ha loo gurmado oo qaraabanimaha loogu gurmado oo si guud ha loogu gurmado oo si gaar ah loogu gurmado
oo gaalo iyo hay-adaheeda unbay arkayaan oo ordayo wax samaynayee muslimiinta waxbaa la haystaaye dadkaa ha loo gurmado oo waxa la taro waa imtixaanana marar badan markaan akhrinayo aayadda qur-aanka ah ee ku jirta fii suurati alxaaqa waxay mudan tahay inaad isdul taagto marar fara badan allah markuu ka hadlayay tabaaraka wa tacaala dadka ahlu naarka ah oo cuquubada ay mari doonaan iyo siday u adag tahay alla ka warramay wuxuu sheegay laba sababood oo ay cadaabka ku muteen wa amaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya walam adri maa xisaabiya yaa laytahaa kaanat alqaadiya maa agnaa canii maaliya هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لو السببات وي إلهي موسى الرميسنين dadka masaakiinta in la caawiyana muuna boorin jirin oo ma amri jirin sababtaas labadaas sababood buu cadaabka ku mutay bal u fiirsada billahi calaykum sida la isugu lamaaniyay ilaahayna muusa rumaysnayn masaakiinta in la caawiyana ka muusa shaqayn jirin marar badan markaad aayadda marayso istul taagto waxaad leedahay war wax bixintii maba ahee way ka dartee waxa la isku haysta waxa weeye maxaa dadka u amri weyday ugu boorin weyday masaakiinta caawiya iimaan la'aan iyo amarkaasoo la jebiyey baa cadaabkaasi lagu mutay sidaas daraaddeed tujaaray ganacsatoy kii waxaystayow muslimkiiyow taajirkiiyow ilaahay agtiisa mas-uuliyad baa kuu taalee dadkaa ha loo gurmado صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واجعل ما أنزلته لنا قوة ومتاعا إلى حين يا رب العالمين اللهم أغثنا غيثا مريئا نافعا غير الضار عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم ارحم عبادك وبلادك يا حي يا قيوم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم اللهم أغثنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انشر رحمتك على العباد اللهم أسق عبادك وبهائمك يا أرحم الراحمين اللهم أحيي بلدك الميت يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا غيثا عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفتن يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا غيثا مريئا نافعا غير ضار يا أرحم الراحمين